daawaday waxaan mar walba kaa codsanaynaa ama ku xusuusinaynaa bartaan ku leenahay youtube-ka waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalada aad nagala qayb qaadataan faafintooda oo aad subscribe tiraadaan channelkeena sidoo kalena aad muuqaalada aad sii faafisaan waana mahadsantihiin saaxiibayaal. maantana waxaynu u joognaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mar kale isagoo ay ka muuqato khushuuc sidoo kalena ay ka muuqato murugo ilmeynaya oo aad moodo inuu ilinta iska tirayo u foorara oo u rukuucsan meydka boqoradii ingiriiska ee dhawaan ku baktiday dalkaasi ingiriiska ee UK. bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal haddii aad u soo joogteen taariikhda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo askartii madaxweynkiisa hore askartii Kenya ee Ceelcadde lagu laayay u sujuudaya baktigooda, maantana waxaynu u joognaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mar kale isagoo ay ka muuqato khushuuc sidoo kalena ay ka muuqato murugo ilmeynaya oo aad moodo inuu ilinta iska tirayo u foorara oo u rukuucsan meydka boqoradii ingiriiska ee dhawaan ku baktiday dalkaasi ingiriiska ee UK. maanta daawadayaal waxay ugu yeereen jinaaso ayay markaasi u sameeyeen dowladda ingiriiska. madax kala gedisan oo caalamka ayaana kasoo qayb gashay, walow madaxda ama hogaamiyaasha wadamada islaamka ah ay mas-uuliyad weyn saaran tahay habka ay u dhaqmayaanna ay tahay in ay aad uga feejignaadaan, maadaama waxaan waa adduun dowladahan iyo waxyaabahan oo dhan waa ficilo waa waxyaabo ka mid ah kownka ilaahay. annaguna waxaan nahay basharka ilaahay, maadaama aanu ilaahay aqoonsan nahay, dad islaama nahay, diinteena suuban aqoonsan nahay. hogaamiyaasha islaamka tallaabooyinkay ku dhaqaaqayaan oo ay isleeyihiin gaalada ku raaligeliya inay ka fiirsadaan ayaa fiican. tii ay jirto daawadayaal ayaa haddana ilaahay wuxuu aqliga iyo garashada noo siiyey oo aan ku garanay alxamdulilah ugana mahad celinaynaa. nasiibkana uu noo siiyey dad islaam in aan ahaano waa inaan wax badan aan ka feejignaano. waxaa la arkaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo marka koowaad jinaasada intuu ka qayb galay kadib meel kaniisada ayaa weliba lagu jiraa oo hawshan lagu waxeynayaa. kadibna waxa uu soo muuqday isagoo daawadayaal qiyaro ay ka muuqato, qiyaro madaxana dowladana raaricinaya. dhinacaas oo ka madaxweynihii faransiiska ayaa jooga Emmanuel Macron. ninkaa xataa gaalka ah sidaa ma sameynayo madaxweynuhu yeelay. sawirkaas yacni waan qarinay madaxweynaha kale oo faransiiska kama muuqdo, laakiin sida dublada uu maaragtay madaxweynahan waxa weeyaan uu isku muujinayo oo maaragtay ha lagaa dareemo inaad waxa weeyaan meel ay ku gubanayso isku leeyahay, suu madaxa u roganayo iyo siduu indhaha u haysto cid u haysata ama u roganayso ma lahan. naxdin aad u weyn. shacabka Soomaaliyeed ayaa qaadaa dhigaya sawiradan. meel kaniisada ayaa arrintan ka dhacaysay. tiyo in la aado ama tacsi caynkaan oo kale in laga qayb galo shaki weyn ay ku gadaaman tahay, maadaama madaxweynuhu uu yahay barbaariyihii dalkan oo dadkii qurbaha joogay oo diinta daayartii looga baqay diinta inay ka baxaan oo qaarkood waxa weeyaan qurbaha lagu dhibanaa. haddii madaxweynahoodii iyo waddankoodii ay kasoo jeedeen oo lagu barbaarinayay, haddii uuba caynkaa u dhaqmayo daayar badan baaba laga yaabaaba inay sii lumaan. ma markii ugu horreysay baa waamay Kenya meydadkeedii baa la ogaa siduu maaragtay ugu rukuucay oo dhabarka u goday oo isku duleeyey baktigoodii. maanta tanaa taala maalinta madaxweynaha Masar markii uu la kulmay oo dalka Masar uu booqday madaxuu saa u raariciyey. bal ilaahay baa ku dhaariyay labadaa nin fiiriya. nina caadi u taagay waa ninkii martida loo ahaa, ninkii martida ahaana madaxuu raaricinaya. hadda ninkaa martida loo yahay waa mujrim weyn oo dad badan oo islaama waxa weeyaan waxba galabsan baabi'iyey oo Israa'iil iyo Maraykanba saas u ah. kiibaa ka xishooday waxa uu sameynayo xasan sheekh maxamuud isdulay. xasan aweyska argagixisada hogaamin jira xisbislaam hogaamin jira intuu ka yaabay wuxuu yidhi nin madaxaan dhug aa ka siinaysid naga jooji, madaxaan aad dhug ka siinaysid oo aad cabdifataax siisi maalinto adiga dhug kasoo siinaya hore askartii Kenya nin wax kala garanayo diin yaqaanna waa tahe jooji. marka annaguna waxaan leenahay madaxweyne madaxaan iyo dhabarkaan aad dhug ka siinaysid oo aad foorarinaysid ilaahay uga yaab. nin baa tahay, nin weyn baa tahay, cimri kuu dhiman oo waxa weeyaan ama caqli kuu dhiman hadda ama da' kuu dhiman ma jirto. ilaahay baa wuxuu kusoo la siiyey inaad Soomaaliya waddan dhaho barwaaqa oo ummad islaam 100% sunni ay degan yihiin aad ka noqoto madaxweyne. isduleyntan iyo madaxaan dhag aad ka siinaysid nagadaa nama qabatee, rabbigaagana uga baqo. waxa weeyaan xukun iyo kursi iyo aakhiro dhinac kuu geli mayaan. wataasaa tii boqortooyada lagu sheegayay kuraasta dahabka ku fadhisay wataa maanta naxash bay kaga dambeysay iyo god xalaal baa sugaysa. dadka dhan halkaas u noqonayaan. marka mudane madaxweyne dadkana ha fasahaadin oo waxa weeyaan dadka awalba diinta waxa weeyaan qaarkood iimaanka ku yaraa hasii fasahaadin oo madaxweynihiini baa forforsanaya madaxa dhulka sineeyay isdhihin adiguna barnaamijkan inaga jooji, rabbigaana ka yaab oo rabbigaa cisee. meel walbana waa taagan tahay
madaxana waa foorinaysaa qarannimada sidaan ma ahan qabna ma ahan weligeedna waxa weeyaan madaxweyne xasan sheekh madaxweyneedkiisi wax caynkaanay wax u dhigma toona lagama diiwaangelin bal hal mar waxay tusayaa sawir baa ay tusayaa walaalayaalow bal fiiriyo labadaa madaxweyne isbarbar dhiga madaxweyne farmaajo iyo waxay sheegayaan madaxweyne xasan soomaaliya si fudud waxaa isku barbar dhigtaan labadan sawir ee isbarbar yaalla mid waa 2016 waa meydkii ceel cadda lagu laayo kenyaanka ahaa oo inta la baabiiyey iyagoo weliba soomaaliya aan si sifa sharciga kusoo gelin oo si sharci daraa kusoo galay dadkeeda maskax suuqayay la baabiiyey oo annaga aysan waxba isku keendhaamin laba argagixiso iyaguna argagixisay ahaayeen dadka waxay ku sameynayaan marka la eego kuwa laayana argagixisay ahaayeen meydadkii 2016 la baabiyey madaxweynuhu asaga sida hadda fideogii hore aad kusoo daawateen ugu rukuucayo waxa weeyaan madaxa waxa weeyaan uu forriyey madaxweyne farmaajo ayaa 2019 wuxuu ka degay Burundi markuu ka degay madaxweynihii ayaa soo dhaweeyey waddankaas markii dambe inuu geeyo waan jeclahay roog cas ayaa loo fidiyey salaan sharaf baa la siiyey ciidamo madaxweynihii baa ciidankiisi markaas salaamayay oo salaanta caynkaan oo dee isduliyeenta maaragtay suuxinayay ilaahay unbaa mataqaanaa addoonku inuu waxa weeyaan maaragtay u rukuuco iyo u sujuudo ay bannaanta madaxweyne farmaajo waa taagan yahay lagama yaabo wax caynkaas iyo mataqaanaa inuu sameeyo dabkii diintiisaana tusayn dabkiisaana tusayn muuqaalkaan la sii sheegarayo madaxweyne xasan sheekh waxaan leenahay madaxweynihii kaa horeeyey kaga daya wax badan oo madaxweyne naga daa isduleyntan iyo madaxa dhug aa ka siinaysa daawaday waxaan mar walba kaa codsanaynaa ama ku xusuusinaynaa bartaan ku leenahay youtube-ka waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalada aad nagala qayb qaadataan faafintooda oo aad subscribe tiraadaan channelkeena sidoo kalena aad muuqaalada aad sii faafisaan waana mahadsantihiin saaxiibayaal